waa ku mahadsantihiin shirka London ay waftiga dawladda Soomaaliyeed ka socda madaxweynuhu hogaaminaya yimaadeen Doraato waxa horta hordhaciisi uu bilaabmay shalay waxa jiray shir lagaga hadlayay bulshada rayidka ah qurba joogta iyo dhalinyarada iyo doorkii ay ka qaadanaysa siyaasadda oo shalay dhacay shir labaad baa dhacay oo qaybta dhaqaalaha iyo ganacsiga lagaga hadlayay ganacsatada waaweyn ee Soomaaliyeed ama ha noqoto xawaaladaha ama ha noqoto ganacsatada kale isgaarsiinta qaybaha service oo dhan ama ha noqoto ganacsiga kaleba ay ka soo qayb galeen oo isaguna aad u wanaagsanaa madaxweynuhu kii hore waa soo xidhay kii dambana waa furay si fiican buu u dhacay saaka waxa la isugu mid shirkan oo ay dawladaha waaweyn ee saaxiibka nahay dawladaha gobolka Afrika kuwa geeska Afrika ku yaal saaxiibada nahay dawladaha Carabeed dawladaha Yurub Mareykan aad beesha qaramada midoobay midowga Afrika jaamacadda Carabta ururka Islaamka dhamaantood laga soo qayb galay shirkaas waxa uu ku bilaabmay oo lagaga hadlayay arrinta masiibada abaaruhu ay la kowsatay dawladdu markii la doortayba ay dhaxashay sidii loogu jawaabi lahaa wax badan runtii la qabtay dhibaatooyin waa jiraan ilaa abaariyo baahay xanuunna ay dilaacay waxa kale ay dadkii ka soo qayb galay shirkaasi ballan qaadeen inay gacan weyn ka geysan doonaan qaramada midoobay xogeeyaheeda guud baa joogay oo in aad gacan looga geysan doono sidii abaaraha loola dagaalami lahaa toogu muhiimsan waxa weeye abaartu sanad walba way imanaysaa 2011 baynu ogeyn haddana waxaynu ognahay imaka inay timid kala hore jirtay sidee loogu talagalaa qorshe joogto ah oo dheer oo lagula dagaalamo abaaraha waa ogtiino roobku markuu doob webiga Shabeelle waa fatahaya webiyadii biyihii baday galayaan marka in roobkii la qabto oo waxa weeyaan waa isbedelka cimilada waxyaabahani waa keenaya in beeraha nidaamka waraabinta beeraha irrigation-ka la xoojiyo wax soo saarka beeraha la xoojiyo calaf la sameeyo la dhigo xoolaha loo dhigo si ay xooluhu calafka u cunaan oo mar dhawaaba raashinka la kaydiyo la badiyo marka waxyaabahaas oo dhan baa lagaga hadlay oo la isla qaatay arrinta labaad ee aad ka looga hadlay waxa weeyaan qaybta qorshaha amniga qaranka oo wajigiisii koowaad la galay kii labaad imika la galayo waxa kale oo iyaduna ku jirta dhinaca deymaha lagu leeyahay oo imika qaybta labaad ay la gali doonaa marka run ahaantii rajadu aad bay u fiican tahay dadkii ka soo qayb galay shirka ee beesha caalamka dawladihii gobolka dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha dhammaan rajo weyn baanu qabnaa in maanta shirku markuu dhamaado dib loo noqdo qolo waliba haday tahay beesha caalamka haday tahay dawladda federaalka Soomaaliyeed wixii lala noqday hawl ah fulinteedii si dhaqso ah loo bilaabi doono la gali doona